warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeymo culus oo habeennimadii xalay ka dhacay qaybo kamid ah toga Miraale ee ku dhuumaaleysanayay maleeshiyaad ka tirsan kooxda xiriirka la leeyahay Al-Qaacida ee Daacish. qoraal ka soo baxay taliska howlgalka ciribtirka argagixisada Puntland ayaa lagu sheegay in duqeyntani ay fuliyeen saaxiibada dowladda Puntland ee Imaaraadka Carabta ayaa lagu dilay xubno ka tirsan firxadka argagixisada Daacish oo saruursanayay. duqeynta xalay ka dhacday aaga toga Miraale waxaa lagu dilay xubno kamid ah argagixisada Daacish oo saruursanayay. duqeynta waxaa fuliyay saaxiibada dowladda Puntland ee Imaaraadka Carabta. ciidamada dowladda ayaa saaka ku sugan goobo aan ka fogeyn aaga duqeynta ka dhacday. qorshuhuna uu yahay in maalmaha soo socda la gaaro aaga ay ku sugan yihiin firxadka kooxda Daacish. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta waxaan joognaa Miraale. waxa weeye ciidamadu waxa weeye ayaabahan 3 bari iyo 4 bari la soo dhaafay gobol ka wadeen waana burburiyeen falsafad fara badan iyo waxa weeye gemeedad badan oo qabuuro badan waxa weeye xabaalo wareedada way arkeen cagtan waa mariyeen saaxiibada beesha caalamka waxa weeye ciidamada soo wada jira wada hawlgalayeen 4 bari la soo dhaafay marka wixii faahfaahin waxa loo sheegaya leena shaarab kulli xaaladda ka soo dhaw aad iyo aad u mahadsantihiin marka hore baa maaskale marka xigana bogaadin iyo sharaf waxaan ciidamada dowladda Puntland gaar ahaan ciidamada hawlgalka dilaac ku jira ee ka hawlgalaya gudaha in muddo ku soo jiray sidii caadada ahayd waxa weeye hawlgal baan wadnay dheer 3 bari oo dhameysay wuxuu ka soo Miraale dadka lagu wareeriyay waxaan sheegnaa maatin gacanta ku jira firxadka harana laga harimaayo waxaan noo sheegaynaa shacabweynaha reer Puntland kan u dhameeya anagu wadana waan xaq boosasho soo degay boosasho madaxiisa naga wadana hadii raahid aad iyo waxaan rabaa marka dadka ugu sheegaya ku kalsoonaa ciidamada sharaf iyo salaam waxa aad naga mudantiin mudnaanteeda anaguna waa gudayna waa si sharaf leh baan ku mari doontaan October buurihi iyo eelashi iyo toogi ka baa nabad baan ku mari doontaan October